safiirka Soomaaliya ee dalkani Djibouti Maxamed Cali Nuur oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa wadankani Jamhuuriyadda Djibouti ayna ka soo wada qayb galeen dhammaan warbaahinta dalkani ka howlgasha ayaa waxa uu ummadda Soomaaliyeed guud ahaan uu u hambaliyay sanad gurihii 19 ee ka soo wareegtay markii Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka xorowday gumaystayaashii kala duwanaa ee Faransiiska iyo Ingiriiska isla markaana ay midoobeen waxaan halkan maanta muxuu ahaa aan ku qabanayo waa sanad guuradii 19 oo ka soo wareegtay xorriyaddii Soomaaliya iyo madayntii labada gobol ee Soomaaliya iyo iyadoo ah usbuucii xorriyadda Soomaaliyeed laga soo bilaabo 26 Juun oo ahayd gobolada waqooyi Soomaaliya 27 Juun oo ah xorriyaddii markay qaadatay Jamhuuriyadda Djibouti walaalahan nahay iyo 1 Luulyo oo ahayd isku darkii labada gobol ee Soomaaliya koonfur iyo waqooyi halkan waxaan uga dirayaa hambalyo ummadda Soomaaliyeed oo ku magac tirsata magaca Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo u ah ciid iyo farxad iyo rayn u ah waana muxuu ahaa isha maalmo xusidooda mudan haddii Ilaahay usbuucaas uu kana aadiyay safiirka ayaa sidoo kale waxa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay guud ahaan inay iskaashadaan gacmaha isqabsadaan isla markaana ay ka fogaadaan wax walba oo keeni kara khilaaf dhexdooda waxa sidoo kale hambalyo u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti marwada koowaad iyo guud ahaan dalkani Jamhuuriyadda Djibouti madaxdeeda iyo shacabkeedaba halkan oo maanta aniga aan muxuu ahay aan wakiil uga ahay dawladda Soomaaliyeed Jamhuuriyadda Djibouti mahad weyn baan u celinayaa qaybtooda ay ka qaateen ilaa muxuu ahaa ishaq burburkii Soomaaliya oo ay qaybta ay ka qaateen dadaalkii wax qabadkii soo dhaweyntii iyo xitaa muxuu ahaa ishaq soo dhaweyntii ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan muxuu ahaa ishaq aan ugu hambaleynayaa waxaan si gaar ugu hambaleynayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo iska saaray xil gaar ah Soomaali maanta ilaa waqtiga hadda la joogay waxay u baahnayd hiil bay u baahnayd marka hiilkii maanta laga filayay Jamhuuriyadda Djibouti uu hogaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaan filayaa in hiil muxuu ahaa ka duwan hiiladii Soomaaliya loogu hiiliyay mid ka duwan in ayaguna muxuu ahaa maanta ay qabteen oo ay tahay inay dhiigooda ku hiiliyaan marka waxa weeye waa mid aan xusuusan doono ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumad kasta Soomaaliyeed ay xusuusan doonto 1 Luulyo waxay ka dhigan tahay waxa weeye waa midnimadii Soomaaliyeed oo ahayd muxuu ahaa ishaq xorriyaddii ay qaadatay koonfurta iyo isku darkii labada gobol oo ahayd koonfurta iyo muxuu ahaa iyo waqooyiga marka waxa weeye waa maalin qiimo weyn shacabka Soomaaliyeed ku leh loona baahan yahay in lagu barbaariyo dhalinyarada loo sheego qiimaha iyo culayska iyo mugga ay leedahay macnaheedu waxa weeye waa ummad walba waxay ku faantaa waqtigii iyada xorriyaddeeda oo la wareegtay xorriyaddeeda ay qaadatay gaar ahaan Afrika markii ay ka baxaysay gumaysiga waxa weeye waa maalin qiimo leh Afrika markii gumaysiga ka baxaysana waxaan u ahayn dawladihii ugu horreeyay oo muxuu ahaa gumaysiga ka baxay qayb weyn ka qaatay inay xoreeyaan muxuu ahaa wadamadii kale ku haray gacanta gumaysiga ku haray marka waa maalin aad iyo aad qiimo weyn u leh ummadda Soomaaliyeedna macno weyn ugu fadhida safaaradda Soomaaliya ayaa tan iyo markii loo soo magacaabay safiir Maxamed Cali Nuur waxaa ka socda howlo lagu dayactirayo guud ahaan safaaradda iyadoo oo si gaar ah howlahaasi ay uga qayb qaadanayaan shaqaale aad u fara badan waxaana safiirku tilmaamay in Soomaaliya ay mar kale cagaheeda isku taagtay loona baahan yahay in dhinac walba laga hagaajiyo howlaha dawladda Soomaaliya waxaa sidoo kale isna ka hadlay munaasabadda 1 Luulyo Bashiir Khaliif Muuse oo ka tirsan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Jamhuuriyadda Djibouti waxaana ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan waxaana dawladda Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba ugu hambaliyay sanad guurihii 19 ee ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay ka xorowday gumaystayaashii horta aad baad u mahadsantihiin wariyaashayda Soomaaliyeed waxaan maanta anoo fursadda ka faa'iideysanaya waxaan maanta taaniyad u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba 1 Luulyo waa waqti qaali ku ah Soomaalida intii waagaa jidhay iyo inta dhalataba dabcan waa dareensan yihiin waa waqti qaali oo Soomaalida ku ah waqti adag laga soo gudbay la helay xornimo xalaal ah oo dawladnimo marka waxaan leenahay
shacabka Soomaaliyeed ganacsatada dawladda waxaan leenahay mabruuq baan leenahay إن شاء الله waxaan rajaynaynaa sidii kowda luulyo la isu qabsaday oo la isugu tagay in la isugu tago wixii ka dameeyay burburkana la iska ilaawo oo masiibadii dhacday dadka Soomaaliyeedna meel ay joogaan bay gacmaha isqabsadaan wayna soo arkeen wax walba mid dibad u baxay mid ma garanaysaa waddanka gudihiisa dagaal ku qabsaday mid ma garanaysaa siyaasad xumo heshay marka dee waxaan rajaynaynaa hadda waqtiga la joogo 2019 in ay ma garanaysaa gacmaha isqabsadaan meel kastoo ay joogaan Mikael Cabdirashiid Bare raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed